بسم الله إن رنتي علي أحمد لبقف أو إن نلشة وحبضان سكلا فهمي أيام هاي كنا تلقى إن أي نلشة ذا أي وناجيان كشقيان تاس وحقيب كأ ولا شقينته هدينا نسعاون نلل راحلة أو قبو ودقل مكون ولا كرنا مركا شقوين كثير نسكو عاونا مركا أي تهاي وحبضان أو السوق جهر وقبتها جرتي وحبضان ولا لقو قبته haweenka waa la wada fahmaya shaqooyinka guriga iyo waxay qabtaan oo Ilaahay u fudeydiyay oo maartay awoodooda ay leeyihiin ayaan qabta sida dabiiciga ah Axmedna wixii ma aragtay culus oo dhan oo aqalkii iyo wax ka beddelkiisa iyo adeegii iyo ma aragtay wixii aniga igu culus oo dhan ayuu isaguna qabtaa another reality hadda ka hadalno anigu shakhsiyan kuma badni laakiin way dhacdaa in aan maaragtay mararka qaarkood aan raashi kariyo quraac soo dhigo maxaan ku leeyahay gabdhahayga quraacaan sameeyay cumaan way jirtaa yani wax weyn baa iska bedelay leena waxa isbedelku wuxuu la socdaa ayaga maaha laakiin wuxuu la socdaa meesha ay ku nool yihiin qaabka ay u noolaayeen waxa ay sameyn jireen shaqo walba qof walba wuxuu qaban jiray ayay ku xirnayd marka familigu ambar qoysku Soomaaliya markuu joogay waxa weeyaan wuxuu haystay gargaar ya culays badan haweeneyda kuma dhacayn culays badan ninka kuma dhacayn marka familiguna uu ballaarna family ballaaran oo cid walba ay ku jirto ayuu ahaa laakiin halkan isbedelka ugu weyn ee reerka ku dhacay waxa weeyaan labadii qof kaligood bay noqdeen xaaskoo ninkii iyo haweeneydii isqabay cid la joogto male marka labadoodii kaliya ayaa isku soo baxay reerku reer ballaaran ma waa labada qof iyo waxay dhaleen ayay ku kooban tahay marka culayska Afrika haysto culayska badan ayaa yimid sida hibat ilmaatay weeyaan runtii ninku ma dhici jirin Afrika markuu joogay inuu dhulka xaaqo ama qoriga uu nadiifiyo maxaan ku dhahdayay in uu madaxa ama maaragtay jikada uu galo in uu ilmaha maaragtay bombarka uu ka bedelo ama uu caana siiyo ma dhacaynin maxaa keenay isbedelku waa maxay waa sida hadda la tilmaamay meeshan lagu nool yahay ayaa keentay ciriiriga maxaa yeelay cid ku caawinayso kale oo shisheeye oo banaankaaga imanayso